waxaynu leenahay ururkayga waa anaa aayaha u samira u subana u sabiiba u sagaliya daruuriya sayma soo hillaacdaa sideedii u wacan tahay ummadduba dhammaanteed haday kuu diyaar tahay dalyaqaan siyaasiya nin dadaalay baa tahay maxamedow muftaaxow muuqiisu macnow waxtartiisu muuqdow kursigaad u halgamaysa allahayaa kugu simo ha ku saaro meel sare adigoo nisaxab gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo ah taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo waxaana laga hortagay degmada Qoyta oo ka tirsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer degmada Qoyta waxa ku soo dhaweeyay shacabka degan degmada Qoyta oo ballan qaaday gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa inay la garab taagayeen hiliyooba gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa Dr. Maxamed Cabdi Kaboos iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo markuu soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wuxuu ku soo wareegay istaraatiijiyada waaweyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana isugu soo biishuteen xafiiska urur siyaasadeedka barwaaqa oo ku yaal doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo halkaas xarka ka jaray gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa iyo wafdiga ballaaran ee hogaaminayay gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo ayaa u ballan qaaday kumanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqa oo mahad celiyay sidoo uu soo dhaweeyeen madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashayna waxaadaladoodii ka mid ahaa sida tan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa simugiyo miisaan leh ayaana kuugu soo dhawaynaynaa waa degmadaadii waa gobolkaagii waa dadkaagii ku soo dhowow gudoomiye Dr. Kaboose siyaasaddu qayb ka mida waa bukootay waa ninkii dawaynayey war sow maaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaannu soo dhowayno digtoorka madaxweynaha mustaqbalka insha allahu ka beddelaya muuse biixi cabdi haddaynu nahay gobolka Togdheer innagoo ka wakiila waxgaradkii cuqaashii siyaasiyiintii halkan looma kala hadhin aad iyo aad baannu soo dhowaynaynaa haddaynu reer barwaaqa nahay waxaynu sidnaa madaxweyne qaran oo la wada leeyahay mid reereed ma sidno mid qoys ma sidno mid qaran maynu sidnaa ninkan waxaa wada ilaahay iyo Somaliland ninkan reer ma wado qabiilo ma wado ilaahay iyo waxa Somaliland wuna soo baxaya haddaan nahay haweenka gobolka Burco waxaan soo dhaweynaynaa Dr. Maxamed Cabdi Kaboose waxaanu leenahay madaxweynaha mustaqbalka iyo aayaha ee wax qabanaya waa adiga annaguna waxaan nahay haweenkii gobolka Burco waxaanaanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xusbiga barwaaqo urur maahe waa xusbi laga bilaabo maanta waxaanu leenahay waa madaxweynaha mustaqbalka ma aha mid qabiil waa mid qaran Somaliland oo dhan insha Allah waxaanu uga baryaynaa inuu noqdo mustaqbalka madaxweynaha anfacayay annagu waxaanu idin galbinaynaa in aan laga sheekaynayn dhakhtarkii weynaa baanu wadnaa gobolladii galbeedkaanu ka soconnaa awdal baanu ka soo bilownay gabiley baa ku xigtay Hargeysa saaxil maantana albaabkii waxaanu maraynaa maxaan kula gobolka Burco degmadii ugu horeysay waan idin mahadnaqaynaa aad iyo aad haddii ilaahay idhaahdo maanta la codaynayo loo soo dareeray qiimaynaya ururadana inaad sidaa iyo si leegu soo baxdaan baanu idinka doonaynaa aad baad u mahadsantihiin soo dhowayntiinna sharafta leh waa idinka mahadnaqaynaa gacmo furan iyo kalsooni indhaha wax arkaya way arkayaan inuu ururnimo ka gudbo xisbi u gudbay waxaan soo dhawaynayaa gudoomiyaha xisbiga barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Kaboose waxaan leeyahay soo dhawo gudoomiye way gaadhay xilligaagii in badan buu hanka siyaasadeed ee dalku ku hayay waxaannu idiin wadnaa madaxweyne caafimaad qaba oo ciilka caafimaad qaba oo aargoosi ka caafimaad qaba waad wada noolaan karaysaan intuu madaxweyne noqdo waad arkaysaan Togdheer siday u soo baxday dabkii baxayaa dab lagu qabtaa waxaan idin leeyahay xisbiga soo baxaya wax ku darsada ninka aanu la soconno Kaboose sallaale nagama aha cid ku dila kow nagama aha qabiil ku dila nagama aha qabiil ku jajabiya dad baa yidhaahda Siciid baa na kala jabinaya idin kala jabin maayaanu dad baa yidhaahda waana lagu soo duulay idinkumaanaan soo duulay dad baa yidhaahda sallaale naloomala rabo kursiga waanu idinla rabnaa kursiga
laakiinse waxa weeye doorashada waanu idinla leenay gacanta waanu idinla leenay salla calee sow maaha cid gaari miyay dhisi kartaa madaxweyne soo somaliland ma wada dhisayso anagu dadkaasuun baanu ka mid nahay baryaa kuwii qulubtoodu barwaaqo noqota allah inuu naga dhigo kuwii isku qalbi allah inuu naga dhigo kuwan la kala qaybin ilaahay inuu naga dhigo kuwii isjecel allah inuu naga dhigo shuushka iyo shaashka allah naga saaro maanta togdheer burco waa mid waxaan idin ballan qaadaynaa annakun inaan midnimadiinna xoojinno inaan cadaaladdiinna xoojinno inaan wada jirkiinna xoojinno in tuunkii iyo qashinkii meesha ka baxaan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qabyaaladdu waa qurun wey qurun waad ogaydeen abwaankeennii weynaa wuxuu yidhi waxay dumisa mooyaane qabyaaladdu wax kale ma laha walaalayaal waa noo caaway waxaan rajaynaynaa ilaahay inuuna mideeyo waxaan rajaynaynaa guul gobol khaniya baad leedihiin haddana fakri baad ka tihiin waa talo xumo weeye indhihiinnii baa la isku soo jeediyey halkii quluubtiinna laysku soo jeedin lahaa sidaad noo soo dhowayseen allaha idiin soo dhoweeyo ilaahay si dhaqsa abaartaa nooga jabiyo ilaahay roob raxmad fara badan allahana siiyo shacbigu waa wanaagsan yahay siyaasiyiintii baa ka xumaaday allaha kuwa khayr badan ka dhaliyo waad aragtaan dhallinyarada shaqola'aanta waad aragtaan caafimaadku halkuu marayo waad aragtaan wax badan oo khaldan indhihiinaad ku aragtaan allaha naga dhigo kuwii u kaca waa noo kacdeen milicdaad noo marteen annana milicdaan idiin marin doonnaa saan guul idiin gaarsiin soo dhowayntani doctor gaboose loogu sameeyey magaalada burco ayaa fariin cad diraysay maanta oo tilmaamaysay hamuumta bulshadu u qabaan furista waa Siciid Cali Cismaan Xaalays telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer.